waa tab hogaamineed oo taaba gashay muddada uu talada dalka jooga madaxweyne Farmaajo inuu sidan oo kale farxadaha ula qaato ciidamada qalabka sida. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo farxadda ciidda Carafa la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhiirigeliyay sida nafurnimada leh ay ugu taagan yihiin difaaca dalka iyo ilaalinta karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed. khudbad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu u jeediyay cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayuu ugu horeyn ku bogaadiyay guulaha wax ku oolka ah ee ka soo hooyeen furimaha hore ee dagaalka. waxa uuna tilmaamay in iyagu ay yihiin laf dhabarta dawladnimada iyo kuwa dhiigooda iyo dhididkooda ay ku ladaan shacabka Soomaaliyeed. runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinahay shaqada adag aad haysaan habeen iyo maalin soo jeedka dhaxanta kaneecada iyo dagaalka joogtada ah aad kula jirtaan argagixisada iyo cadow guud ee Soomaaliyeed. runtii aad baan runtii kaga mahadcelinaynaa. hawshaad ku jirtaan ma aha shaqo ma aha, waa waajibaad wata naftiina inaad hurtaan oo naftiina aad u hibaysaan difaaca ummaddiina dalkiina dawladnimadiina. marka runtii aad baan runtii kaga mahadcelinaynaa, idinku hambalyeelnaynaa shaqada wanaagsan aad ummadda u haysaan. la'aantiin dawlad ma jiri karto, qaranna ma jiri karo. qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ku wajahan dib u dhiska iyo tayeynta ciidamada qalabka sida ayuu tilmaamay madaxweyne Farmaajo inay ka mid yihiin ahmiyadihiisa koowaad isla markaana dawladdu ay dadaal badan ku bixinayso dib u dhiska ciidamada qaranka. waxaana gaartay horumar weyn xaqiiqatan markaan idin sheego. qayb waxaa ka ah madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo idinka aad hoos tagtaan iyo taliyaashiina iyo tababarka aad haysataan iyo qalabka runtii aad haysataan yaa qayb ka ah horumarka ama progresska aad gaarteen. fare kama qodna. waxaan rajaynaynaa inaan xoojinno oo aan soo celinno haybaddii ciidanka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saraakiisha iyo askarta uu la kulmay kula dardaarmay inay wax waliba ka hormariyaan gudashada waajibaadka ka saaran sidii argagixisada looga faramaroojin lahaa deegaanada farakutiriska ah ee dalka uga dhuumaaleystaan. waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyey oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay in lagu celiyo oo qabyaaladda ahayd. indhaheen aan ku soo aragnay annagoo joognay meesha ugu sarraysay aan nimid meesha ugu hooseysay. marka qofkii raadiya wax hoose dan shakhsi, qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad, jawaabteedu waxay tahay meel hoosaad joogaysaa. haddaad raadiso qaran wax lagu waaridiyeeyaa waddaniyad, waxa weeye waxaad tegaysaa waxaad dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaad dhisanaysaa oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo.